kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawaneysaan jumca mubaarak soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa maxaa ka jira heshiiska ay wada galeen maamulada Puntland iyo Somaliland xagaysa ku galeen maxayse ku heshiiyeen labada maamul 48 saac ee la soo dhaafay waxa aad baraha bulshada u haysta Soomaaliduna ay aad u falanqeynaysaa in Puntland ay heshiis la gashay maamulka Somaliland kadib booqashadii ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu ku tagay deegaanada SSC Khaatumo una ku aqoonsaday maamulka SSC Khaatumo inay yihiin maamul goboleed la mid ah maamul goboleedyada kale ee dalka. haddaba heshiiskaasi maxaa ka jira xagee lagu wada galay maxaase lagu heshiiyey maxaase ka jira in Puntland ay ka carooto ay ka xun tahay aqoonsiga maamulka SSC Khaatumo isla markaana ay Somaliland la gashay heshiis ka dhan ah baabiinta SSC Khaatumo. qodobkeena koobaad ayaan ku dul istaagi doonaa waxaan qodobkeena labaad iyadana ku iftiimin doonaa hadalkii wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland ee uu kaga hadlay heshiiska ay wada galeen iyaga iyo Somaliland. haddaba wasiirku muxuu ka yiri arrintaasi qodobkeena labaad ayaan ku dul istaagi doonaa dhinaca kale to waxaan mid iyo labo ka dul istaagi doonaa maamulka Puntland ma waxay qorsheynayaan sidii ay ku baabiin lahaayeen maamulka cusub ee SSC Khaatumo muxuu yahay qorshahooda xiriirka ay la galeen Somaliland iyadana waan iftiimin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay 48 saac la soo dhaafay waxa aad baraha bulshada loo hadalhayaa oo Soomaalidu waliba ay falanqeynaysaa in Puntland ay heshiis la gashay Somaliland oo ka dhan ah maamulka SSC Khaatumo SSC Khaatumana in badan oo kamid ah iyo warbaahintooduba waxay tabinayaan Saciid Cabdulaahi Dani inuu la soo baxay cadaawad la xiriirta sidii maamulka SSC Khaatumo loo baabiin lahaa loo hagardaameyn lahaa meesha looga saari lahaa. arrintan waxay soo baxday laba xilli mid waa mid markii Puntland SSC Khaatumo uu tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre una aqoonsaday maamulka SSC Khaatumo waa koow waxaa haddana sii xoojisay iyadoo ay taagan tahay tension ay taagan tahay dadku ay aad u hadal hayaan ayay Puntland 12 maxbuus oo garow laga soo daayay Hargeysa garow laga soo dajiyay iyagana 16 intay sii daayeen bay Hargeysa ka dajiyeen laba wafti oo maxaabiista kala hogaaminayna Hargeysa iyo garow way ka kala degeen oo waliba garow waxaa ka soo degay boqor buur madoobe oo tabashooyin badan ay ka qabeen dadka hartiyeed ismada harti qaar ka midana ay iyo aflagaada badan u geysay. arrinta markay dhacdo inta dhacday waxa banaanka imaatay inuu qof walba isxajin waayo oo marka uu yiraahdo Saciid Cabdulaahi Dani waa cadow SSC Khaatumo baabiinaya Saciid Cabdulaahi Dani waa cadowgii SSC Khaatumo la heshiiyey waxay labada cadow ku heshiiyeen in la baabiiyo SSC Khaatumo. inta badan tabashooyinka dadka qaba ee eedda jeedinaya waa dhinaca SSC Khaatumo markaan xaqiiqada ka hadalno. haddaba arrintan maxaa ka jira heshiis miyaa jira Puntland iyo Somaliland ay wada galeen gundhiga hadalku waa halka heshiis ayaa jira. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland wuxuu sheegay in heshiiska Puntland iyo Somaliland uu ku qotomo iskaashiga labada maamul ee dhanka amniga la dagaalanka khawaarijta isku socodka waxa weeye ganacsiga in uu yahay oo uu ku qotomo oo labada maamul iskaashigoodu uu salka ku hayo sidii ay iskaga kaashan lahaayeen la dagaalanka khawaarijta iyo sidoo kale to isku socodka bulshada ama ganacsiga. arrintaas Saciid Cabdulaahi Dani baa ku dhawaaqo afkiisa ka sheegay in maamulka Somaliland ay muhiim tahay in ay iska kaashadaan waxa weeye la dagaalanka argagixisada iyo waliba in la isku furo isku socodka gaadiidka ganacsiga. intiibu wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland isagana faahfaahiyay heshiis kaleeto oo la og yahay oo Somaliland iyo Puntland ay wada galeen oo baabiin dadkaas SSC Khaatumo iyo maamulkay dhisteena oo la hayo ma jiro markaan xaqiiqada ka hadal la way taasi waa taas iyadana oo waxba kama jiro. Puntland haddaba ma waxay ka carootay
حمزة عبد البر إنه أقول صدو مامولك إسسي خاتمة أونا تغو ها ويكعرض دولة فدرالكو تجتان كإسسي خاتمه وحكا لأما أيسا تجين جعيل أي صومالي ذا كجعليهن أما أيسا تجين جعيل أي صومالي ذا كجعليهن أما أيسا نقوصنين مركان حقيقة ذا كاظر لوي دان إياغا أي كوتان أو دولة فدرالك oo ay waliba miciin bideen maanta inay SSC khaatumo jilicsantahay laga faa'iideysan karo ayay horta u tageen laasacaanood ayna u aqoonsadeen arintana waxa keentay in ra'iisul wasaare Xamse matalaadii dadkii uu matalayay maamuladii uu matalayay ay gacantiisa ka baxeen mar hadday gacantaada ka baxeen ayaa ku ogolan baadi cid ku ogolan baad soo qaadan dawladdu waxay rabtaa inay meeshan ka hirgasho doorashada qof iyo codka natiijadeeda la og yahay Xamse Cabdi Bariye Xasan ay ku soo noqonayaan waxa weeye lagu soo dooranaya dadka ay rabaan ayay dadkan hadda rafaadsan ee muddada dagaalka ku soo jiray ayay rabaan inay marsadaan kaararkooda ayaga marka dan ku watay shacabkuna dan baa ugu jirtay in la aqoonsado laba danood baa marka la isweydaarsaday SSC khaatumana waa ogolaadeen oo dantaaba ku qasbaysay inay ogolaadaan iyagana waxay rabeen baa la siiyay waa la kala badashay marka labadooduba khalad ma lah laba danood baa la isdhaafsaday Puntland marka waxay filaysay maadaama ay abaal badan u soo gashay xoreynta deegaanada SSC khaatum dhiig ay u shubtay in lagala tashado la yiraahdo war nimankii filla Soomaaliya saasayna leeyihiin daniyow abaal baad nagu leedahay maxaan sameeynaa kama uusan filaynin nin uu qoor sagaara ku hayo qoor sagaara ma taqaanaan luqunta qoor sagaara saa ugu hayo meel uu u dhaqaaqala oo lagu habasa friq ka siinaya in iyaga loo soo marayo oo darbi lagu duminayo horta ma uusan filaynin carada marka Saciid Cabdulaahi Dani ma aha aqoonsi in la aqoonsado gogashu wax ka dhigay dhulku la xoreeyay khaalib uu ka aha shacabku intay dhisanayeen gogolaha qabanayeen doorashada sameeyeen gudiyada dhisanayeen hadlayeen waligi hadal ka duwan hadalka shacabka kama uusan yeedin xagga Saciid Cabdulaahi Dani kama soo yeedin hadii dadku ay heshiyaan oo wax dhistaan hadee waa okay buu isagu lahaa taas buu ku rajaweynaa maamulku tixgelinay shacabku tixgelinay inta Saciid Cabdulaahi Dani hadal qardoofe ama hadal qalloocsan lagama maqal gaar lay leedahay Saciid Cabdulaahi Dani haday ay noqoto maxanaaqsan yahay arintan horay ku soo sheegay buu ka cadhaysan yahay kama cadhaysna aqoonsiga dadka shacabka walaaladii dadkoodu ay heleen laba maamul ay heleen kama cadhaysna kama cadhaysna aqoonsiga dadka walaaladii dhiiga uu shubay dhacaanka u bixiyay wax walba u huray talada u huray ay heleen kama cadhaysna doqon baa ka cadhoon taas oo kaleeto sababtoo sad u soo kordhay way wuu soo yahay isagaba taasina waa midaas horta iyadana halka inooga tira Saciid Cabdulaahi Dani maxay tahay sababta gobolada waqooyi uu heshiiska ula galay Saciid Cabdulaahi Dani sida wada ogsoontihiinba wuxuu u taagan yahay kursiga madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waa musharax madaxweyne oo tartami raba maadaama musharax madaxweyne uu yahay Saciid Cabdulaahi Dani ulama uusan heshinin gobolada waqooyi